أحمد عبد كاري قرقور وزير الدولة وزارة هولها جود حكومة الصومالية أيام أنت سر رسمي أو قد واقعين وياهي مشرح تاجن حلك مدحتنموه مامل كجل مدوج مناسبة دا كل واقصة مشرح نمديسا أيا وحا كسو قيب قلي مسؤولين نسوق جرا حلبانو وزيرو سياسيين وحقرد إيه قيبها كلا دوان بلشدا dhammaan mas'uuliyiintii ka hadasha goobta ayaa waxay ku gubaabiyeen Axmed Qorqor inuu ka shaqeeyo mideynta iyo isu keenida bulshada Galmudug. Galmudug waxaan tagay aniga iyadoo Cabdi Qaybdiin oo ka yahay madaxweyne Galmudug jirta dawlad goboleed mareeg leeyahay dawlad goboleedka Mareeg Cabdi Geedi oo xaradeere xibin iyo xeeb Ilaahay baa ugu guuleeyay tan Ilaahay baa ugu guuleeyay insha Allah. waxaa kaloo isu sheegay inaan farxad ahay saaxiib wardi ahay xasan qeyraan raacnaa saaxiibaday waa soo guuleystay waa la socotay marka ma rabo inaan ku dheeraado bar kaloo firaaqo aan ka sheekayn doono waxaan hor u soo marnay madaxweynayaashii hore waa la shaqeey laakiin waa ii suurtoob weysay baashis si fiican loo taago Axmed Cabdi Kaari oo soo dhawow waxaan ku haynaa sharaf intaad soo shaqeynaysana waa ognahay inta ka horeyso 15 ka horeysana business ka shaqeynayay marka runtii waa ninaan dhigi karno wuu astaahilaa in loo dhiibo dadkana wuu isku wadi karaa waxa laga sheekeeyay mucaarad iyo muxaafad sideeda Galmudug mucaarad dambe uma baahna af dheer aan ku leenahay annaga waxba uga soo weynay mucaarad marka uma baahnin inuu mucaarad dambe noo soo noqdo marka madaxweyne muxaafada oo dawladda timaad bala soconaya midaan xataa haday baxdo midda dambe la soconaan u baahanay madaxweyne xisbi raaca uma baahnino hadba xisbi la soconaaho marna mucaarada marna muxaafadana uma baahnin Axmed Cabdi Kaari Qorqor geesinimada uu dhigtay meel Galmudug oo og yahay waxa ka jiray afartii sano aan soo dhaafno waxa ka jiray inuu shaarka u soo siibto oo yiri I'm the one daaweynayo waa aniga inuu yiraahdo waa geesinimo waxaan leeyahay haddii Ilaahay idmo xilkaas Ilaahay kugu guuleeyo waxaanu ku ballan qaadaynaa haddii Ilaahay idmo inaan garbahaaga xoog iyo xoolo iyo maskax iyo energy midna inaan lagala harin marka ku soo dhawow waxaan rabaa meeshaas runtii waxaan aad ugu faraxsanahay hadda inay la keenay waxa la yiri aruub ninkii soo lisay looga ninka rabaa hasido hadda Galmudug in la keenay magaala madaxdii dhibaatadii Galmudug ka jirtana waxaan qabaa boqolkii aan iraahdo 70 waxa xaliyay magaalada Dhuusamareeb iyo isku keenidii dadkii kala duwanaa حسن هذا حسن على غير اسمه جعلن لكن شغله وكقبت دوس مريب وما أنت أي شوكته وهو هم بليين هيا ها شغفي عم بالله قبت ماشاس ما أنت وكاسو تبيل بني ولا با تبيل ملك متي Galmudug waxay u baahan tahay sidaas Galmudug waxay u baahan tahay mas'uul 24 saac oo shaqeeya uma baahna mid aan u shaqeyn ee magaceeda qaato waxba tari mayso in xilka la qaato xilka in lagu shaqeeyo umada loogu adeegal raba wala dardaarmayna Qorqor inuu ku sifoobo waxaan sheegayo oo sanad kadib hadii alla na gaarsiiyo sanad guuridiisa asagoo xusaya oo yiraahdo waa fuliyay wixii Cali Maxamed Gedi sheegay hadii uu sidaa yeelayna waxaan ku dardaarmayaa shaqo waa haystaa inuu iska dhaafo gabagabadii munaasabada waxaa soo xiray musharax Axmed Cabdi Kaari Qorqor isagoo ka hadlay waxyaabaha uu doonayo Galmudug inuu qabto hadii uu ku guuleysto xilka madaxtinimada waxaana qodobada ugu waaweyn uu tilmaamay kamid ahaa in uu sukeeni doono dhammaan bulshada Galmudug ee hadda kala qaybsan sida hadalku u dhigay waxaan rumaysanahay inay reer Galmudug gaareen bisayl iyo khibrad ku filan oo ay kaga weecan karaan wada la yaqaan meesha ay ku dhamaanayso oo ah kala qaybsanaan dad iyo dal
maanta waxaa loo baahan yahay waayo arag isku wadi kara galmudugta cusub iyo siyaasi garanaya mashaakilka jira iyo sida lagu xallin karo. Axmed Cabdi Kaariye Qorqoor oo hadda ah wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda Soomaaliya waxa uu ku biirayaa tiro musharaxiin ah oo haatan soo taagay qabashada xilka madaxtinimo ee maamulka Galmudug iyadoo dhawaan la filayo in deegaanada maamulkaas gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb ay ka bilowdaan doorashooyinka baarlamaanka iyo midda madaxtinimo ee maamulka Galmudug. Nuur Cabdiraxmaan Nuur, Mustaqbal Media, Muqdisho.